taariikhdu markay ahayd 19 bishii 12 2017 maxkamadda waxaa la hor keenay eedaysane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ina maka xasan xalane ku dhashay buulo barde degan xamar kaasoo xaafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranku ku soo codsadeen muddo baariseed in la siiyo ayagoo tix raacaya qodobada 184 215 189 218 219 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaas oo la soo qabtay iyadoo aan loo hayn ogolaasho maxkamadeed oo waafaqsan qodobka 38 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed isla markaasna xeer ilaalintu codsatay in la siiyo muddo baariseed 5 cisho ah maxkamadduna ay ka diiday codsiga xeer ilaalinta maadaama aan markii horeba lagu soo qaban ogolaasho maxkamadeed laakiin maxkamaddu waxay amartay xaafiiska xeer ilaalinta in 24 saac gudahood ay maxkamadda hor keenaan caddaymo dhammaystiran waxaa dib loo ballamay maanta oo ay taariikhdu tahay 21 bisha 12 2017 in xaafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu hor keeno caddaymo waafaqsan qodobka 39 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xaafiiska xeer ilaalintuna wuxuu ku guul daraystay inuu maxkamadda keeno caddaymo waafaqsan dhammaystiran sidaas darteed maxkamaddu markay aragtay warqadda hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka ka soo baxday ee sumadeedu ahayd 595/2017 ujeedadeedu ahayd codsi muddo baariseed ku taariikhaysan 19 bishii 12 2017 maxkamaddu markay aragtay warqadda sumadeedu tahay AG 43 2017 ku taariikhaysan 19 bisha 12 2017 ujeedadeedu ahayd codsi ogolaasho muddo baariseed kana soo baxday xaafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka maxkamaddu markay aragtay warqadda sumadeedu tahay magaba da'da'la 361 2017 ee ku taariikhaysan 19 bisha 12 2017 ujeedadeedu ahayd ogolaasho muddo baariseed oo ah 24 saac in dembigaas lagu soo cadeeyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maxkamaddu markay aragtay aayadda 27aad ee suuratu al-nuur maxkamaddu markay aragtay qodobka 7aad faqradiisa 2 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 77 iyo 13 ee isla xeerkaas maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda maxkamaddu waxay xorriyadiisii u soo celisay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ina maka xasan xalane 49 jir ah ku dhashay buulo bardo maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed maxkamadduna waa noo xiranta